السلام عليكم فضلا دان وحشوطة سبسكرايب سيادة la socoto casharada dambe mahadsanid waxaynu ognahay inuu dad badan oo naga mid ah ay dib weyn ka haysto dhanka ilkaha ka guduuta ama ilkaha ka wasaqooba haddaba halkan waxaan kugu sheegayaa dhowr waxyaabood oo aad sameynayso sidaad u jeedid waxaad soo qaadanaysaa geedka gitaarka loo yaqaan waa tumaysaa waad shiidaysaa adoo biyo yar ku daray kadib cusbo ayaad qaado ku daraysaa waxaad ku daraysaa misana dawada cadiga goolkeedka loo yaqaan saddex shay ayaad isku walaaqaysaa kadib brushka cadiga ayaad soo qaadanaysaa ilkaaga ayaad ku cadaysaa si xooga adiga ku xajinaya ilkaaga waxaa la tijaabiyay ama tijaabul wax la ogaado weeyo qobar ayaa u fariisatay kadibna waxay ogaadeen inay jeermisku ka disho geedkan geetaalka loo yaqaan iyo dawada la isku daray cusbadana ay dilaa bakteeriyada marka saddexda shay oo la isku daray haddii iskaashadaan waxay adkaayaan ilkaha waxayna ka dilaan jeermiska ilkaha ku jira sida madmadowga iyo magarka laftirkiisa dad dhowr jeer ku celiso magarku ka guuray waxaa ogeysiisa geedka geetaalka intaada tumin ama aad shiidin ka hor inaad dhaqayso geetaalka dhaqaysaa kadib aad tumaysaa waad shiidaysaa biyo yar ku daraysaa kadib waxaad ku daraysaa colgate ama colgate qaado colgate iyo qaado cusbada kadib waa saddexda shay isku walaaqaysaa ilkaha marinaysaa bakteeriyada ilkahana way xoojiyaan bakteeriyada ka dileen